waa su'aal aad la yaabi doonto jawaabta ay ka bixiyeen dumarka marka la weydiiyey. Dumarka inta badan waxay sheegeen in jawaabtu ay tahay maya. Dumarka inta badan waxa ay sheegeen in cabirka gusku ninku uusan door weyn ku lahayn raaxada galmada, balse muhiimaddu ay tahay sida uu isticmaalo qalabkiisa. Dumarka waxa ay sheegeen in galmada ugu raaxada badan ay ka helaan midka guskiisu dhexdhexaadka yahay, balse leh xirfad iyo dulqaad, taasi oo ah in uu si fiican u yaqaano sida haweenka loo qanciyo. Haddii uu ninku yahay mid waqti badan ku qaadan kara sariirta isaga oo aan biyo bixin, isla markaana diyaar u ah in uu tijaabiyo waxyaabo kala duwan, dumarka aad ayay u jecel yihiin xitaa haddii uusan lahayn gus weyn. Dumarku waxa ay neceb yihiin ninka guska weyn ee isku haysta in guskiisu kaliya uu u shaqaynayo ee aan isticmaalin maskaxdiisa, oo doonaya inuu dhowr daqiiqo inta uu boobsiiyo galmada marka uu biyo baxo meesha isaga carara. Waxa ay ka doorbideen midka qalabka yar balse leh dulqaadka oo muhiimadda siinaya raaxada iyo qancinta gacalisidiisa. Haweenku aad ayay u qiimeeyaan ninka ka fikiraya raaxada ee aan isaga kaliya iska fikiraynin. Dumarku qaar xitaa waaba ay ka cararaan ragga aadka u guska weyn maadaama ay gabadhu aad ugu xanuunsan karto, weliba haddii uusan ninku ahayn mid taxaddar leh. Haddaba haddii aad tahay mid Ilaahay ku manaystay gus weyn, waxaa muhiim ah in aad ku darsato dulqaad iyo farsamo si aad dumarka u qanciso.